maanta waa ay jimco tahay waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayo arrinta cadaalad darrada ah ee uu ku kacay maamulka xisbiga kulmiye taas oo uu ku soo dhisay maamulkii gobolka Gabiley cadaalad darro weyn uu ku sameeyey beelihii wada deganaa gobolka Gabiley taas oo uu ku kala sameeyey inuu u kala eexday beelihii deganaa ee ka soo wada shaqeeyay xisbiga u soo halgamay beelana uu sadbursiye siiyey beelo kale oo cudud xoog la kulay degaankana una cid xubinna siin arrintaasi run ahaantii waa arrin cadaalad darro ah jabna waxay ku tahay xisbiga kulmiye iyo maamulkiisa iyo ragga arrinkaa gaadhay waxaan cambaaraynayaa waan u sheegayaa xisbiga kulmiye haddii uu tallaabadaa ku sii socdo inay tahay tallaabadii uu ku jabayey shalayto xisbiga kulmiye guddoomiyaha xisbiga musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye hadalladii uu ku hadlayey khudbadihiisa ugu dambeeyey ee uu ku sheegayay cadaaladda iyo midnimada iyo wada lahaanshaha ma waxay ku dambaysay inuu beelaha bahasa maroon ee degaanka Gabiley weligood abiida soo deganaa uu ku soo dari waayo guddidii loo sameynayay gobolka run ahaantii taasi waxay tahay foolxumo weyn annaguna haddaanu madaxdii beelaha nahay aanan u dulqaadanin waa cadaalad darro uu bilaabay waxayna keenaysaa taas in beelaha gaarka uu isagu u xusay mooyaane inta kalena ay ka tashan doontaan yalla haddii ay arrinkaasi dib loo socdo waxaan leenahay oo maamulka xisbiga kulmiye aan u sheegaynaa inaan marnaba aanan qaadan karayn qursiga iyo arrinkaa uu ku kacay iyada oo beeluhu aqoon-yahanadooda ay in badan u tageen kanala hadleen arrinkaa inuu maanta iska indhatiro oo falkaa xum geystaa waa mid aanu aad iyo aad uga xunnahay waxaanu ku cambaaraynaynaa maamulka xisbiga waxaanu leenahay foolxumada aad gasheen waa in sida ugu dhaqsaha badan laad uga noqotaan beelaha gobolka deganna waa in loo cadaalad iyo loo sameeyaa cadaalad wax ku dhisan loo sameeyo taa maanta la dhisay beelana loo sadburiyey ee afar iyo shan la siiyey beelihii kala deganaana hal qof la siiyey beesha bahasa maroonna aan laguba soo darinba saaxadda waxa weeyaa waa foolxumo waa arrin laga tiraanyoodo waa arrin foolxumo oo ku kacay xisbiga kulmiye kamana yeelano mana ogolaanano waxaan leenahay haddaad xisbiga u danaynaysiin oo doonaysiin maanta tartan baa lagu jiraa arrinkaa dib uga noqdo dib ha looga noqdo waxaanu ogolanahayna maaha waana cadaalad darro uu ku kacay xisbiga kulmiye maamulkiisu kulana kacay beelaha degaanka Gabiley gobolka Gabiley intaas ayaan u sheegayaa